أبو طلحة نك الله أورنجري وأنصار بوها أم سليم رضي الله عنها وأنس بن مالك هو يدي ومؤمنة ومسلمة أيو دمعين وقرصدو مرقاسو هاساوي مدي inaad ku guursadaan rabaa ka waran waxay ku tilmaad islaamtay markaas uu dhimay laakiin diin baan haystaa anu bal gabadha hadalkay ugu jawaabtay eeg markaa bay ku tiri diinteed haysataa afala tastahi ma txishoonin bay ku tiri ma txishoonin diinteed haysataa maninkaaga qoriga caabudaya iyo dhagaxa la qoray caabudaya ayaa la diin baan haystaa xishoo bay ku tiri diin ma haysatid diin annaka haysana diin waa diinta nabi maxamed uu la yimid calayhi salaatu wasalaam hada huwa diin markaasuu ka sii jeestay way ka daba hadasho waxay ku tidhi in aslamta fa innii laa uriidu minka sadaaqan hayrahu bay ku tidhi hadal macnihiisu ahaa yaa abaa talxa soo noqo bay ku tidhi haquusan kaalay haddaad soo islaamtid haddaad soo islaamtid bay ku tidhi mahar iyo mariin dumarku ragga waxay xaq ugu lahaayeen kaa dooniba maayo islaamnimada aad soo gashay ayaan meherkayga iyo mariinkayga u qaadan bay ku tidhi maxaa gabadha agteeda qiimo lahaa bal ii sheega ninkaa inuu islaamu naar ka badbaado cajiib oo islaame wuxuu yidhi ma intaa unba ahaa waxba iga dooni maysid waxba kaa dooni maayo islaam bas waayahay anas radia allaahu canhu oo khaadimkii nebigeenna ah oo iyadana inankeygiiya ayay ku tiri hooyo gacanta qabo nebiga u gees sal alla alay wasalam markaasaa nebiga loo keenay markaasuu nebiga hortiisa ku ashahaatay markaasay ku tidhi soo celi anasow markuu islaamo markay u soo celiyey ayay ku tidhi haddaba anasow hooyada u guri bay ku tidhi yani hooyada maanta laga bilaaba ku ogow bay ku tidhi maaragtaan waa kaas ninka maadaamuu ballankii buuxiyey ana ballankayga waan buuxiya waa ninkaygii bay tidhi abu talxa gabadh cajiib ahayd umu sulaym yaa rayta haweenkeennu may gabadha ku daydaana dumarkeennu hadday horumar doonayaan hadday taariikh fiican doonayaan hadday ilaahay ridihiisa doonayaan may haweenka ku daydaana haweenka saxaabiyaadka abu talxa caloosh uu la aqalgalay wiil bay u dhashay safar buu u baxay uu soo noqday markaas ilmihiioo xanuunsa buu ka baxay uu soo noqday markaasuu ku yidhi yaa umu sulaym ilmahayga yaraa bal iga warran siduu yahay waxay tidhi sidii aad kaga tegtay uu ka xasiloonni badan yahee isqabooji bay ku tidhi xaaji iska naso safar baad ka timid isqabooji markuu habeenkii u dharkii dhigtay uu yar nastay uu casheeyey gogashiina ay dul yimaadeen ee wada seexdeen saqdii dhexe ee xaaskiisiina ay is arkeen uu barakeeyey ayay ku tidhi intay barida u fadhiisisay yaa abaa talxa ay dhegayso su'aal baan ku weydiine jaarkeenna haddaan alaab ka soo caariyaysanno oo alaabtoodii subaxda ay nagu yidhaahdaan alaabtii xalay aad naga qaadateen noo soo celiya ma u celin lahayd mise waa u diidi lahayd maya waan u celin lahayn buu ku yidhi markaabay tidhi haddaba ilmaheennii yaraa inakumaan lahayn ilaahay baa inoo dhiibtay ilaahay lahaabaa qaatee anigu waa sabre adiguna iska sabiro maydkiisiina waa ka halkaa ku duudubana ka iga soo aas bay ka tidhi taariikhda adduunyada gabdha caynkaasa ma soo marin mana soo mari doonaane ogaada ilmaheegii oo shafeecay oo mayda oo aqalka dhexdeeda u yaallo mara ku duuduuban ayay sariirtan ama firaashkan dushiisana ay ninkayga ku dul raalli gelisay uu yaabay abu talxa maxaa tidhi waxay tidhi ha walwalin waa lana bare tarbiyad baa la baray iyaka ina lilaahi maa akhada walahu maa acطaa wa kullu shayin cindahu biajalin musammaa nebiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu saxaabadiisa ka dhaadhiciyey saxaabiyaadka gabdhihiisu ugu horeeyaan waxa uu baray waxa ilaahay uu qaadanay isaga unbaa iska leh waxaan haynana isaga unbaa inoo dhiibtay war ma waxbaan leenahay inaku ma lehid maalintaad hooyadaa ka soo baxday inanu hooyaday ka soo baxay walaa islaam baa ila socotay walaa inamaa ila socday walaa gabdhahaygaa ila socday mid walba keligii buu caloosha ka soo baxay keligiina caalamka uu ka baxayaa
ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا والناس حولك يضحكون سرورا فاحفظ لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا وإذا وحيكون الشيء adigoo ooyaaya dadkuna agtaada ay faraxsan yihiin oo ay leeyihiin wiil baa dhashay maxaan u bixinaa ay leeyihiin ilaahay amarkiisa intaad adduunyada ku nooshahay ilaali oo diinta ilaali oo salaada ilaali oo amarka ilaahay ilaali si maalintaad dhimanaysid aad adduunyada uga baxda adigoo faraxsan dadkuna agtaada ay ka baroortaan tarbiyadda baa saxaabada la baray waxa ilaahay uu qaatanay isagoo baa iska leh waxaan haysanana ilaahay jalla wa ala isagoo baa inoo dhiibtay ilmahi waa ka meydkii waa kaasa kacso aas bay ka tidhi dadna markaasuu abu talxa radia allahu canhu wuxuu sameeyey markaa waxa uu tegay nebiga calayhi salaatu wasalaam rasuulkiiba u sheegay markaabuu nebigu ku yidhi acarastum leylata ya abaa talxa xalaytoole maad caroostay oo caroos maad haydo xaajiyad islaantaada xalay ma barakaysay markaasuu yidhi yaa rasuulallah markaan casheeyey iyadiina aan barakeeye kadib ayay arrinta ii sheegtay buu ka yidhi markaabuu nebigu ku yidhi baaraka allaahu fii laylatikumaa is-araggiinni xalaytoole allah inii barakeeyo buu ka yidhi is-araggii xalaytoole allah inii barakeeyo habeenkii ducadii baa ilaahay u aqbalay caloosheediiba habeenkiiba riximka ilmaa u galay ilmihii wuxuu noqday wiil buu noqday wiilkii maalintuu dhashayna nebi maxamed baa loo keenay cabdullaahi buu nebigu u bixiyey yaa taxniigga nebiga u sameeyey magaca nebiga u bixiyey dhabtii nebi maxamed baa lagu qabtoo lagu ciyaarsiiyey waxau yidhi sufyaan bin cuyayna waxaa la arkay ilmihii yaraa oo 9 wiiloo culamaaya isaguna dhalay ilmo barakaysan muxuu dhalaa sheegade awlaad barakaysan buu dhalay mid barjeeyana muxuu dhalay mid barjeeyoon buu dhalay qabiili buu dhali qabqabluu dhali siyaasi buu dhali laakiin ninka diini buu dhali ninka barakaysan reer duriyad barakaysan buu dhali ilmo barakaysan buu ahaa barakadiisa waxa uu daliila habeenkuu riximka ku dhacay buu nebigu yidhi baaraka allaahu fii laylatikumaa is-araggiinni xalaytoole allah inii barakeeyo maalintuu dhashayna dhabta nebi maxamed baa lagu ciyaarsiiyey taxniigga nebiga u sameeyey magaciisana nebiga u magacaabay sufyaan bin cuyayna oo ruwaatulxadiis ka mid ahaana wuxuu yidhi 9 wiiloo culamuu ilmihii dhalay buu yidhi allahu akbar hadihi ummu sulaym radia allahu canha walaalayaal dadkaas agtooda diintaa qiimo la lahayd gabadhaas budcigeegii bay ku iibsatay diin meher iyo marin waxay xaq u lahayd waxay ka doorbiday inuu abu talxa diinta islaamka soo galo inaguna maanta muslim walaalkeena oo qaraabadeenna oo talkeena ayaa agteena bilaa salaad ku dhimanaya goormaan diinta u sheegnaa ma taqaanaa soomaalidu goorma isku gurmataa markuu qofku dhinto markaa unbay baraarugi ma la aasay qabrigiisii ma la tegey nacashkii ma la soo qaaday kafankii ma loo soo gooyey badh reerka oo dhan baa qabuuraha iman maxay ku qabanayaan waa kaas war intuu qofku nool yahaa la rabaa gacanta in la soo qabto masjidka la keeno lagu noqnoqdo loo duceeyo la ikraamo markaska la geeyo dacwadda lagu soo xidho loo dulqaato loo sabro loo kaadiyo laga quusan ambiyadu ma quustaan te diintu dadaalkaa bay nooga baahan tahe kulligeen insha allah dadaalka diinta ma guddoonnaa insha allah dhahada